munaasabadan ayaa ahayd mid looga hadlayay ahamiyadda afka hooyo iyo aayaha ubadka Soomaaliyeed waxaana soo qaban qaabiyay xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir. Ujeedada munaasabada ayaa ahayd wacyigelin la siinaya dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir taasi oo loogu faahfaahinayay muhiimadda uu afkeena Soomaaliga leeyahay. Madasha waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga AGA, mas'uuliyiin ka socotay gobolka Banaadir, xildhibaano iyo qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan. runaantii maanta farxad ay noo tahay in fursadan aan ka helno barnaamijkan quruxda badan aan ugu talagalnay in dhalinyarada wax badan ay ka ogaadaan dalkooda taariikhdiisa iyo waxyaabihii runaantii bariismaadkii waxaana la joogaan dad qabiiriin ah runaantii oo noo soo diyaariyay cashiradaas oo loogu talagalay in dhalinyarada maanta fursadan heshay ee tababarkan ugu faa'iideysato dhammaan waa u mahadcelinaa runaantii AGA iyo tiimkooda. Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga ayaa ka hadlay qiimaha uu inoo leeyahay afkeena hooyo. ugu horeynta afka isirka afka la yiraahdo ama afku meesha uu ku abtirsado ama bah wadaagtiisa ayaan jeclahay in aanu isla fahamno. waxa weeye waxa uu bah wadaag leeyahay afku aqoonta dhaqanka iyo suugaanta. macnaha aqoonta dhaqanka afka iyo halabuurkiisa fan iyo suugaaneed intaasi waxa weeye waa silsilad isku xiran oo isku bah ah weeye. marka si kooban waxaa halkaas sidaad ku aragtaan aqoontu waa furaha horumarka. yani haddaan aqooni jirin horumar lama gaari karo. dadku waxay noloshooda hore u marin karaan qof ahaan iyo wadar ahaan iyo wadan ahaanba marka ay aqoontooda sii horumartaba noloshoodana horumar bay kusii tallaabsan kartaa. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax. noogu aqoonta badan waxaan u naqaanaa qofka luqadda qalaad yaqaana. qofka noogu aqoonta liidana waxaan u naqaanaa qofka af Soomaaliga ku hadla. hadda runtii waxaa fursad noo ah dawladdan intay joogto in manhajtii waxbarashada dib loo cusboonaysiiyey. annaga kuma baran af Soomaali laakiin dalxa iyo dadkii ka horreeyay af Soomaali fursad u heleen. marka dhalinyarada hadda jooga fursad kale ay haystaan iskuulaadkii dib looga bilaabay in af Soomaali wax lagu barto. marka ayadana fursad kale noo tahay maamulka gobolka Banaadirna inuu muxaadarooyinka noocan oo kala ah xoojiyo oo uu idinkaga faa'iideeyana waa rajaynaa oo aan sii badino hadduu alla idmo. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.